habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawa ee caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka caawa ugu waaweyn waxa ay kala yihiin iyadoo dagaal uu ka sii socdo wadanka Yemen ayaa qaramada midoobay waxa isku dayaysaa in ay sii xoojiso dadaalkeeda sidii lagu joojin lahaa xabadda warbixin gaar ah ayaan idinkaga haynaa xaaladda magaalada Xudayda wararka kale caawana waxa kamid ah ugu yaraan 200,000 oo qof ayaa ka barakacay ilaa bishii July dagaalada u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada Ethiopia sida ay sheegayso hay'adda NRC Britain ayaa uga digaysa Iran inaanay siyaasad u isticmaalin dadka labada dhalasho haysta iyadoo Jeremy Hunt uu noqday wasiirkii ugu horeeyay ee reer galbeedka ee booqda Tehran ilaa markii Mareykanku cunaqabataynta uu ku soo rogay waxa kale oo aan idin haynaa muran ka dhashay qiimaha lowska Tanzania iyo sababta loogu yara ciidamada inay soo dhaxgalaan si ay u xaliyaan khilaafka u dhaxeeya beeralayda iyo ganacsatada kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka dalka Yemen dadaalo lagu joojinayo dagaalka ayaa fashilmay iyadoo dagaalku uu dib uga bilowday magaalada dekada leh ee Xudayda isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminayo ayaa ku soo qaaday duulaano cusub kadib markii xoogaga dawladda iyo kuwa Xuutiyiintu ay isku dhaceen wadankaasi dagaalka wadanka Yemen ayaa dalka waxa uu kala qaybiyay laba dhinac oo ay kala xukumaan dhinacyada isaga soo horjeeda oo dhinaca bariga koonfurta wadanka Yemen oo dawladdu ay gacanta ku hayso iyo dhanka waqooyi bari oo kooxaha mucaaradka ay gacanta ku hayaan dagaalka ugu dambeeyay ayaa ku saabsanaa cid ka talin doonta magaalada dekada ah ee Xudayda waxaana qaramada midoobay hore uga digtay dagaalku inuu waxyeelayn doono 250,000 oo qof isla markaana uu raashinka suurtagal ay tahay gargaarka inuu ka go'i karo malaayiin qof Sacuudiga iyo isbahaysiga ayaa lagu eedeeyay in inta badan dhimashada dadka rayidka ah ee ay duqeeyeen iyagoo ay mas'uul ka ahayn laakiin maanta Sacuudiga iyo Imaaraadku waxay u ballan qaadeen wadanka Yemen 500 milyan oo dollar oo cunto gargaar ah lagu siinayo wadankaasi ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa waxa uu ku sii jeedaa Yemen si uu markaasi u dhex dhigo oo uu sii dhagax dhigo wada hadallada nabadeed ee Sweden ka bilaaban doona inkastoo wali aan waqti loo qaban Aisha Afrax ayaa ka waramaysa wax yar ayaan ka nasanaynaa dagaalkan muddada socday caruur iyo qoysas ayaa isku imaaday si ay xabad joojinta ugu dabaaldegaan ducadu way joogtaynayaan laakiin yaa og muddada ay colaadda maqnaan doonto aagga hore ee dagaalka kama foga magaalada Xudayda saacado yar kadib duqaynta isbahaysiga ayaa qoyskan gurigooda burburisay 6 gabdhood oo isla dhashay ayaa guriga ku sugnaa kuwa badbaaday ayaana isbitaalka loola sii cararay aabbahood Najiib ayaa ku farxay in gabadhiisa Malika ay nooshahay guriga ayaan joognay salaada casar ayaan tukan rabnay markii uu madfaca gurigeen ku soo dhacay laakiin 4 ka mid ah walaalaheed ma aysan badbaadin 6 bilood ee tagtay ciidamada Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ku sii dhawaanayay Xudayda waxa ay sheegayaan in dekada Xudayda looga soo dejiyo hub iyo sahay kooxaha Xuutiyiinta ah ee Iiraan ay caawiso dagaalkan ayaa laga yaabaa inuu soo afjarmo laakiin khasaare inteedan ayuu geystay duulaanka hadda socda wuxuu barakiciyay 500,000 qof iskuulkan ku yaala magaalada Cadan oo ay dawladda xukunto ayaa hadda noqday xero ku meel gaar ah Samiira iyo 6deeda canug waxay hoy ka dhigteen jaranjaro hoosteed markii dagaalku uu bilowday waxayna go'aansatay inay Xudayda ka qaxdo 3 maalmood ka hor sawaariiq iyo madaafiic ayaa nagu da'ayay wadooyinka ayay nagu cabsiiyeen ilaahay naxariistiisa mooye waa ayna kala fadhiyeen cabsi ayaan ku seexanaa kuna soo toosnaa gaajada iyo faqriga ay dagaaladu sababeen ayaa dadka saboolka ah ee Yemen ku kalifaya inay raashinka dhex raadiyaan qashinka si ay u badbaadaan rajo sare ayay dadkan ka qabaan wada hadallada bilaaban doono
hay-adaha gargaarkuna waxay ka digayaan in yemen ay qarka u saaran tahay abaartii ugu darreyd taariikhda wakhtiguna uu sii dhammaanayo. bal colaadda waddanka yemen aynu ka tagno dhinaca waddanka etoobiyana hay-adda qaxootiga ee norway NRC ayaa sheegtay in colaadda u dhaxaysa soomaalida iyo oromada waddankaasi etoobiya ay barakiciyeen oo sida hay-addu ay sheegayso dad tiro badan oo ka qaxay colaadda halkaasi ka jirta waxaana ay sheegeen in dadka ka qaxay halkaasi ay gaarayaan 700,000 oo qof oo u qaxay dhanka dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia sanadihii ugu dambeeyay dagaalada ayaa soo noqnoqonaya waxaana hay'adda Norwegian Refugee Council ay sheegtay in ka badan 200,000 oo qof ay ka barakaceen dagaalada qowmiyadaha u dhaxeeya ee ka dhacay dalkaasi ilaa bishii July dadkan ayaa u qaxayay dhinacyo kala duwan haddaba waxaanu la hadalnay Evelyn Ero oo ah la taliye goboleedka hay'adda NRC oo joogta Nairobi. intooda badan waxay ka soo qaxeen dagaalkan qowmiyadeed ee ka dhaxeeya Oromada iyo Soomaalida. odayaashu waxay noo sheegayaan in dadku ay u dhimanayaan gaargaar la'aan. caruurtana waxay naftooda ku waayeen nafaqo daro iyo cudurka jadeecada. waxaan soo dhawaynaynaa isbeddelka cusub ee siyaasadda xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida. waxayna siinayaan dadka barakacay adeegyado sida lacag gaargaar ah faydhowrka biyaha iyo nadaafadda. guddiga qaxootiga ee Norway NRC wuxuu dhab ahaantii la shaqaynayaa dowladda. Evelyn Aro oo ka tirsan hay'adda NRC oo u warramaysay telefishinka BBC. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa. horumar weyn ayaa laga sameeyay sidii loo sifayn lahaa minooyinka laakiin khubarada ayaa sheegaya in tirada dadka wax ku noqda ay aad u badan tahay. ololaha caalamiga ah ee lagu mamnuucayo minooyinka ayaa sheegay in ay ku dhawaad 2,800 oo qof ay u dhinteen sanadkii tagay minooyinka kuwaasi oo rayd u badnaa. dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in Carlos Ghosn aanu sii hayn karin jagada hoggaanka shirkadda baabuurta samaysa ee Renault. arrintan waxay ka dambeysay markii lagu xiray Japan oo looga shakiyay in uu ka been sheegay lacagta soo gasha. saraakiil ku sugan Paris ayaa sheegay in ilaa hadda aanay ku hayn caddayn ku saabsan inuu wax isdaba mariyay. Mr. Ghosn waxaa lagu eedeeyay in uu si khaldan u isticmaalay lacagta shirkadda Nissan oo iyana madax uu ka yahay. siyaasadda madaxweyne Trump ayaa dhibaato kale ay ka hor timid. xaakim jooga San Francisco ayaa si ku meel gaar ah u hor istaagay amarkii ka mamnuucayay dadka soo galootiga ah inay magangeliyo dalbadaan. Mr. Trump ayaa amarka saxiixay bishan horaanteedii isagoo uga jawaabayay soo galootiga faraha badan ee uga soo socda dhinaca soodinta waddanka Mexico. saynisyahanada caalamka ayaa helay meere ama xidig abuuri kara qaraxii ugu xooga badnaa ee abid soo mara dunida oo noqonaya kii labaad awoodiisa. waxay sheegeen in koox xidiga ah oo ka kooban 2 qayb oo la yiraahdo xidigaha Wolf-Rayet ay u wareegayaan si zaa'id ah oo soo afjari kartaba jiritaankooda xilli kasta. xogayaha arrimaha dibadda ee waddankan Britain Jeremy Hunt ayaa booqday markii ugu horeysay waddanka Iran tan iyo markii xilka loo magacaabay. wuxuu dalbaday in si degdeg ah loo sii daayo Nazanin Zaghari oo ah haweeney British ah oo asal ahaan ka soo jeeda waddanka Iran. tan iyo 2016 ayay xirnayd iyadoo loo haysto dacwad basaasnimo ah. Mr. Hunt ayaa sheegay in cawaaqib xum ay ka dhalanayso haddii xabsiga lagu sii hayo Nazanin iyo kuwa kale ee Britishka. Axmed Xaaji Xasan ayaa ka warramaya. sidan ma ahan muuqaalka xilli kasta. xogayaha arrimaha dibadda ee Britain oo ku dhex wareegaya jidadka Tehran oona dhadhaminaya cabitaanka suuqa weyn. waa booqashadiisii ugu horeysay Jeremy Hunt ee Iran wuxuuna la soo noqday fariin cad. wuxuuna sheegay inay tahay in dalkan uu si degdeg ah u sii daayo Nazanin Zaghari iyo dad kale badan oo asalkoodu Iran ka soo jeedo oo xiran. haddii sharci ahaan ay xirayaan dadka labada dhalasho haysta iyada oo diblomaasiyad loo adeegsanayo waxaa jiri doonta cawaaqib xun. tani ma ahan arrin ay UK aqbalayso oo la iska samaysanayo. waa kiis uu u gudbiyey dhigiisa Iran oo qiray inay aqbalayaan gargaar bini'aadannimo balse wax badan kama aysan suuragelin. maxay tahay sababta aan Nazanin Zaghari loo sii deynayn? miyaysan saxaynin cadaalad daro iyo hagaajinta xiriirka UK iyo Iran? ma joogno meel aan uga hadalno sharci ahaanshaha kiiska
waa gabar Iran u dhalatay waxaana dacweeyay maxkamadda oo madax bannaan. Accused by the judiciary, which is an independent body. taasi waa dhibaatada dadka iska leh awoodda go'aanka gaaridda dacwadda Nazanin halkan ma aysan fadhinin. marka dhanka Britain la aadana saygeeda waxa uu soo dhaweeyay dadaalka Mr. Hunt. waxay ila tahay halkan horay waan u gaarnay waa markii labaad oo xogeeye arrimo dibadeed uu u ololeeyo sii deynta Nazanin laakiin waxaan sii wadaynaa rajada aadka u sarreysa ee ah in Christmaska ka hor ay dib u soo noqonayso. sidoo kale Jeremy Hunt ayaa halkan u yimid inuu qiimeeyo saamaynta cunaqabataynta Mareykanka ay ku yeelatay jidadka Tehran. wuxuu sheegay in Iiraan uu cadaadis badan saaran yahay alaabta reer galbeedkana ay aad ugu yar tahay. hogaamiyayaasha Iiraanna waxa ay sheegayaan in dhibaatadu ay haysato shacabka waxayna siyaasiyiinta EU ku boorinayaan inay garab siiyaan. mar walba waxaad nagala socon kartaan bogayaga BBC Somali Facebook adiga oo raadinaya BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqayn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn. si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamkaba nagala soco BBC Somali Twitterka iyo waliba BBC Somali Instagram. wali waxaan oo soo socda oo qaybta dambe ee barnaamijka aad ku daawan doontaan oo aan idin haynaa muran ka dhashay qiimaha lowska wadanka Tanzania iyo sababta loogu yeeray ciidamadu inay soo dhex galaan si ay u xaliyaan khilaafka u dhaxeeya beeralayda iyo ganacsatada. wax yar kadib oo nasiinaha dib ayaan isugu soo noqon doonaa ee hanaga tagina. wali waxaad daawanaysaa barnaamijka caawiya caalamka ee BBC Somali waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale balan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn. iyadoo dagaalka uu ka sii soconayo wadanka Yemen ayaa qaramada midoobay waxay isku dayaysaa inay sii xoojiso dadaalkeeda sidii lagu joojin lahaa xabadda wadankaasi. Britain ayaa uga digtay Iran inaanay siyaasadda u isticmaalin dadka labada dhalasho haysta iyadoo Jeremy Hunt uu noqday wasiirkii ugu horeeyay ee reer galbeed ah ee boqda Tehran ilaa markii Mareykanka cunaqabataynta uu ku soo rogay. Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi waxa ay bilaabeen in ay sifeeyaan miinada ku aasan dhulka hoostiisa ee militariga goobaha aan loo ogolayn ee u dhaxeeya labada wadan. Ha Ji-hoon oo ah askari ka tirsanaa Kuuriyada Koonfureed ayaa lugihiisa ku waayay miinooyinka Kuuriyada Waqooyi xilli uu ilaalo halkaasi uga jiray. waxaase uu sheegay in wadida doomaha yaryar ay jir ahaan iyo maskixiyanba ay ka caawisay in uu soo kabsado. marka aan doonta saaranahay dagaal ayaan naftayda kula jiraa. kani waa Ha Ji-hoon oo ah horyaalka doonyaha yaryar ee usha lagu wado ee Kuuriyada Koonfureed kaasi oo lugihiisa ku waayay miino isaga oo ilaala ka ahaa xadka u dhaxeeya Kuuriyada Koonfureed iyo tan waqooyiga. qarax ayaan maqlay waxba ma arkaynin mana maqlaynin kadib qaraxa. dhowr daqiiqo kadib xanuun ayaan faraha ka dareemay. xanuun daran ayaa i haayay. markaan hoos u fiiriyey lugahayga lafaha keliya ayaan arkayay. mid ka mida cagahayga ayaa ka soo laalaaday biraha hortayda. baaris ayaa lagu soo gabagabeeyey in Kuuriyada Waqooyi ay dhigtay miinooyinkan. ku dhowaad 2 milyan oo miino ah ayaa la rumaysan yahay inay ku jiraan dhulka aan militariga loo ogolayn ee u dhaxeeya labada Kuuriya. ilaa iyo markii uu xiriirka u dhaxeeya labada Kuuriya uu soo wanaagsanaaday waxay labada dhinac ka shaqeeyeen in ay ka saaraan miinooyinka qaybo ka mid ah dhulka aan militariga loo ogolayn. haddii aanan miinada ku joogsan lahayn ciidanka iga dambeeya ayaa ku istaagi lahaa. si loo badbaadiyo wixii ka haray lugihiisa waxaa bil gudaheed lagu sameeyey 21 qalliin. intii aan ku jiray la qabsiga way adkayd. xanuun ba'an ayaan u adkaystay. wixii iigu adkaa waxay ahayd fiyoobida maskaxdayda. inkastoo aan fiicnaan muujinayay haddana wax badan ayaan dhinaca kale soo maray. waxaan isku dayay inaan qariyo xanuunka. haddii aan bannaanka keeno waxa aan marayo waalidkay way ku sii adkaan lahayd.
wadidda doonyaha yaryar ayuu sannadkan bilaabay taasi oo qayb ka ahayd soo kabashadiisa dhowr tartan ayuu galay wuxuuna ku guulaystay billado wax badan ayaan ka bartay doonta waxa aan bartay sidii aan u xukumi lahaa maskaxdayda markii iigu horraysay ee aan doonta koray waxa aan ogaaday sida ay u deggan tahay waxaan dareemay farxad kadib markii aan tababartay jir ahaan waa daal balse maskixiyan waa fiican tahay bal ka waran beeraley iyo ganacsato la soo dhexgeliyey ciidamada militariga si ay xal uga dhex sameeyaan dowladda waddanka Tanzania ayaa waxay qaaday tallaabo ay ku soo afjarayso khilaaf dhinaca qiimaha looska ah ee waddankaasi oo beeraleydu ay diidayeen in dalagooda ay iibiyaan sabab la xiriira inaysan ku filnayn dhaqaalaha ay u baahan yihiin ee ganacsatadu ay kaga iibsadaan arrintaasi wariyaha BBC-da Suhayba Maxamed Badqas ayaa warbixintan ka soo dirtay lowska waa badeeco qiimo weyn ka leh Tanzania waa dalag aad looga dhoofiyo dalalka bariga Afrika iyada oo in ka badan 220,000 oo tan la filaya in la soo gooyo sanadkan balse suuqgeyntiisa ayay dhibaato ka taagan tahay muddo toddobaadyo ah ayaa beeraleyda iyo ganacsatada gudaha waxa ay ku kala qaybsanayeen qiimaha in ay dalagoodaasi ka iibiyaan ganacsatada waxa ayna sheegayaan in qiimaha ay ku rabaan uusan daboolayn qarashkii ku baxay beerista lowsku waa qaali in kiiladiina lagu iibsado wax ka yar $1 waa lagu khasaaraya qiimaha ay dawladdu ku doonayso kiiladii $1 iyo badh aad ayay xataa u hoosaysaa laakiin faa'iido ayuunbaa laga helayaa kala qaybsanaanta labadan dhinac ayaa dowladda Tanzania ku qasabtay in ay soo kala dhex gasho madaxweyne John Magufuli ayaa shaaciyay in dowladda ay dalagaasi kaga iibsanaysa beeraleyda laba jibaar lacagta ay ku rabaan ganacsatada maxalliga ah waxa uu amray in ciidamada ay la wareegaan gacan ku haynta lana socdaan iibinta looska marka lacagta la bixiyo ciidamada ayaa meelaha loogu talagalay geynaya looska waxayna sidoo kale la soconayaan habka uu marayo dalaga beeraleyda qaar ayaanan weli ogeyn halka uu ku dambayn doono dalagooda waxayna u malaynayaan in bixinta lacagta ay qaadanayso waqti bangiga horumarinta beeraha oo ay dowladdu leedahay ayaa u xaqiijiyay in lacag ku filan ay u hayaan ururada lowska ka shaqeeya waa inay eegaan in ay qiimo ku daraan annagana waa inaan maalgelinno si aan gacan uga geysanno beeralaydu inay ka faa'iidaan wax soo saarkooda balse xisbiga mucaaradka ee Tanzania ayaa ka hor yimi go'aanka madaxweyne Magufuli ee uu ku siinaya beeraleyda $300 milyan waxa ayna sheegeen in inta aan laga iibsan beeraleyda dalagaasi ay tahay in la horgeeyo baarlamaanka oo ay soo ansixiyaan markan haddaanu eegno qaybtii ciyaaraha ee caawana waxaa jirta qorshe lagu kala qaybinayo European Super League oo la sheegay in hadda aanu ahayn qorshe jiraba sidaasina waxaa ku waramay laba sarkaal oo ah kuwa ugu awoodda badan ee kubadda cagta ee qaaraddan Yurub waa madaxweynaha UEFA Alexander Seferin iyo gudoomiyaha xiriirka naadiyaasha ay leeyihiin qaaradda Yurub waxay BBC-da u sheegeen inay midaysan yihiin inkastoo ay jireen warar la shaaciyay oo ku saabsanaa in wada hadallo qarsoodi ah ay jireen oo lagu abuurayo horyaal cusub oo Yurub ay yeelato ciyaaraha qaramada Yurub caawa dhacaya waxa weeye Portugal ayaa martigelinaysa kooxda waddanka Poland Portugiiskuna horey ayay ugu soo baxeen finalka xagaaga dambe horeyna waxa ay finalka u sii joogayba wadamada England iyo Switzerland iyo Netherlands ciyaaraha kalena waxa kamid ah Ruushka oo Sweden u safraya iyo Kosovo iyo Azerbaijan oo iyaguna ishaya xalayna ciyaartii xiisaha lahayd ee wadamada Netherlands iyo Jarmalka ayaa ku dhamaatay 2-2 waxa iska hor marayaan dhinaca kale ciyaar caawa xiiso leh kubadda cagta ah dalka shanta jeer qaaday koobka adduunka ee Brazil iyo kooxda haysta koobka qaramada Afrika ee Cameroon ciyaaryahanka culus ee Neymar ayaa la safi doona Neymar waxa uu hogaamin doonaa kooxda ee Brazil oo ku jira ciyaaryahanka Liverpool u ciyaara ee Roberto Firmino waxaana tababaraha kooxda Cameroon Clarence Seedorf uu sheegay in ay tani u tahay tijaabadiisii ugu weyneyd tan iyo markii hogaanka uu qabtay libaxyada aan la loodin ee kooxda Cameroon bishii August
waa tahay toddobaadkan waxaanu sidii xalay idiin sheegnay habeen walba idiin soo gudbinaynaa mid ka mid ah ciyaaryahanada BBC-da abaalgudka ay bixinayso ee Afrika ee sanadka 2018 oo markaasi ay BBC-du u magacawday 5 ciyaartooy oo kala ah Benatia iyo Kolibali, Sadio Mane, Thomas Partey iyo Mohamed Salah. Caawana waxaanu eegaynaa ciyaaryahanka u dheela kooxda kubadda cagta ee Napoli, Calipoli. qodobka ugu muhiimsani waa inaan mar kasta sameeyo horumar si aan dadka ugu muujiyo inaan noqon karo mid ka mida difaaca adduunka ugu wanaagsan. run ahaantii waxaan doonayaa inaan la guulaysto Napoli. waxay tuseen kalgacayl badan iyo kalsooni. waxaanan rabaa inaan u abaalgudo. waxaan rajaynayaa inaan la qaado horyaalka. sannadkii hore waxaan aaminsanaa inay Juventus naga cabsanaysay ilaa dhammaadkii. marka aad dareentid in kooxda kale kaa baqayso, dhab ahaantii waa farxad. waana dareen wanaagsan. waxaan ku dhashay Faransiiska, laakiin waxaan leeyahay laba dhaqan. waxaan leeyahay dhaqanka Faransiiska, laakiin waxaan sidoo kale haystaa kii dalkayga hooyo ee Senegal. markii aan arkay xulka Faransiiska oo ku guulaystay koobkii adduunka 98, markii aan arkay goolkii uu Trump ka dhaliyay Croatia, kadibna goolkii Zidane ee finalka, ilaa xilligaa waxaan doonayay inaan noqdo ciyaaryahan. si wanaagsan ayaan u ciyaarnay koobkii adduunka. aniga waxa ii ahayd waayo aragnimo wanaagsan, sababtoo ah waxaan doonayay inaan muujiyo in Senegal ay ka mid tahay waddamada ugu wanaagsan Afrika. waxaan doonayaa inaan wax ka qoro taariikhda kubadda cagta ee Senegal. waa waxa aan rajaynayo mustaqbalka. waxaan xasuustaa inuu ciyaaryahan wanaagsan yahay. wuxuu joogay Mets. wuxuu ahaa wiil wanaagsan oo degan mar walba oo shaqo adag. sanadkii horena horumar wanaagsan ayuu sameeyey. fadlan iigu codee inaan noqdo ciyaaryahanka Afrika ee abaalgudka BBC-da ee sanadkan. waxaadna ka codayn kartaa bogayaga bbc.com/somali in koobkaasi qaramada Afrika ciyaartooyga ugu wanaagsan. bal markana aanu idin haynaa waa warbixintii ugu dambeysay ee aanu kusoo gabagabayn jirnay barnaamijka sanad guuro dhalasho oo meel dunida ka baxsan ka dhacday. saldhigga dayax-gacmeedka caalamiga ah ee 20 jirsaday 1998 ayaa Kazakhstan laga furay. ilaa markaasna 136 dayax-gacmeed ayaa ka duulay saldhiggaasi. hadiyadda dhalashada ah ee saldhigga waxa weeye inuu helayo qalab ay ku jiraan daabacadda afka qalaad lagu yiraahdo 3D ee muuqaalka weyn muujisa. xusuusnow wararkii ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaa bogayaga bbc.com/somali. waa tahay haddaan idin xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyna waxaanu idiin haynaa in dalka waddanka Yemen dagaalka ka soconaya uu yahay dagaal markaasi qaramada midoobay ay dadaal doonayso in ay ku soo afjarto. inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii caawa daawadayaal. intaan mar kale habeen dambe dib u kulmayno dhammaantiin waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo habeen wanaagsan.